masjidka madaxtooyada ayuu madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdullaahi farmaajo kula tukaday qaar ka mida bulshada siyaasiyiin iyo xubno ka tirsan dowladda culimada ayaa salaada kadib la wadaagay madaxda iyo dadkii kale ee masjidka ku sugnaa kelmado baraarujina oo u badnaa isku duubni iyo in lala shaqeeyo madaxda qaranka oo qodobka diinta ay ku taagan tahay waa cabsida ilaahay qodobka dawladnimada ku taagan tahay waa dana noo sheego ah in madaxda talada haysta laga dambeeyo la adeeco calaykum bis-sam'i wat-taaca ayuu yidhi maqal inaad maqashtiin madaxdiina ood adeecdiin ayaa dushiina ah buu yidhi marka labadaas dardaarno taqwada ilaahay iyo kala dambaynta madaxdana laga dambeeyo la adeeca ayuu nabigu nooga tegay calayhi salaatu wasalaam oo maantoo kaleeto uu weliba noo dhiibay maantana ogaada oo waa maalinta ilaahay uu yidhi alyawma akmaltu lakum diinakum wa atamtu calaykum nicmatii wa raditu lakum alislaama diina maanta ayaan idin dhammaystiray maaragtay diintii idin dhammaystiray nicmadeedina aan idinku taam yeelay diinta islaamkana aan raalli idinkaga noqday marka maalintaas marka dardaaranka nabiga oo noo dhiibay waa dhammaystirka diinta waaye waa dhammaystirka dawladnimada waaye waa dhammaystirka horumarka ee amniga istiqraarka wasiirka warfaafinta mudane maxamed cabdi xayir maareeye wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi salaad iyo wasiir ku-xigeenka badaroolka iyo macdanta Soomaaliya mudane maxamuud cabdulqaadir hilaal ayaa munaasabada ciida ugu hambaliyeeyay shacabka Soomaaliyeed dhammaan ciid wanaagsan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ayaan leeyahay waxa ilaahay mahadiye ah inaan maanta nabad ku ciidnay maanta waa maalin aad iyo aad u farxad badan muslimiintu inay muujiyaan ay tahay shacairta islaamka ka mid ah ummadda ilaahay uu untay oo islaamnimada ku manaystayna hadiyad ooga dhigay waxaan rajaynayaa in ummadda shacabka Soomaaliyeed maanta ay iskugu hambaleeyaan tahniyadan weyn waxaan ku baraarujinaynaa insha Allah taala ummadda Soomaaliyeed in Ilaahay subhanahu wa taala ciidiisana nabad nagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo duu Ilaahay ka raali noqdo iyo nabad ayaa naasna nuuga leh Soomaalida tiraahdaa nabad in aan ka wada shaqeyno inaan yeelano dawlad dhisan xoog leh inaan yeelano insha Allah taala midnimada inaan ka shaqeyno iscafiska inaan ka shaqeyno in aan dhidubada u taagno dawlad hadii aanan dawlad jirin shacabna ma jiri karo waxaan ummadda Soomaaliyeed runtii muddo badan dagaalo iyo dhibaatooyin ku soo jirtay laakiin hadda ka baxaysa insha Allah taala aan ku boorinayaa inay iscafiyaan in waxyaalaha ummadda kala qaybinaya la iska cafiyo wixii hore dhacay waxa dambena laga digtoonaado la iska dhaafo sida qabyaaladda oo kale iyo kala qaybsanaanta oo ummadaha u keena inay baaba'aan oo daciifaan waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan ciid mubaarak ha la is cafiyo muxidiin macallin cabdulla warbaahinta qaranka madaxtooyada Soomaaliya